caawa waxay ahayd furitaanka tawiiga toddobaadka Soomaalida ee dalkan Britain oo lagu qabanayay xarunta British Library oo ay isugu yimaadeen bulsho Soomaaliyeed iyo fanaaniintii laga soo casuumay dalkan dalal kala duwan oo adduunka ka mid ah. Sanadkan waxaan barnaamijkan marti ku ah Maxamed Saciid Cabdi BK iyo Iskalachi oo America isagu ka yimi sidoo kale Cabdilaahi Xasan Garay abwaaniin fara badan directoro intuba dhamaantood ay meeshan isugu yimaadeen furitaankii toddobaadka Soomaaliyeed ama afarta benesho ayaa la isaga yimi ciidamo maqnabaad moodaa maansayahan murtiyahan maleeyahan maadiyahan intii ma garanaysaa maskaxda dhaqaajinaysa oo dhan waxaan filayaa in wax wanaagsan oo loo aaya ka soo bixi doonaan bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaa noo farxad ah in maanta barnaamijkii Soomaaliga noo bilaabmay alxamdulillaah rabbil caalamiin waa la isku wada yimid cid martidii oo dhan iyo cid kastaba iminka waxaan galeynaa saaladii iyo barnaamijkii sidoo noogu bilaabmay baa bilaabmasa waxaan salaamayaa dhammaan intii soo qaban qaabisay cid kastaba ha ahaato gaar ahaan qolinka madaxda ee wada barnaamijka aad baan u salaamayaa waa aniga iyo asxaabteedii ag taagan waxaan leenahay si fiican barnaamijku noogu socdaa ugu bilaabmaya oo noogu dhamaan insha Allah aad baad u mahadsantihiin dhamaantiin taageerayaashayada markaan leeyahay waa anaga iyo Cabdicasiise meel kasta joogtaan cisiya sharaf ku noolaada waxaanu ka soo baryahan aanu joognay London Soomaaliga oo maanta la furay aad baa u mahadsantihiin baan leenahay hadalka waa la iga lahaa Cabdicasiis baa igaga horeynaya isagaan horta ku soo dhaweynaya ha hadlo kadib aan hadlaya aniguna maxamed ilaa shalay waad riixaysaa mar walba baad siinay maxamed Saciid Cabdi BK waa mahadsantahay walaale fanaan Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan fanaan ah weeye fanaan codkiisa la jecel yahay weeye fanaan miqaam sare ka jooga fanka aan u rajeynaa in badan oo kalena inuu Ilaahay noo daayo oo ka sii gaaro walaal xabiib oo qalbi fiican weeye maxamed Saciid Cabdi BK thank you oo fanaan si gooni aniga saaxiib u nahay fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan ay saaxiib yihiin meel walba ay joogaan taas waa intii maxamed Saciid waxaan halkan mahad gaar ugu celinayaa anigoo Cabdicasiis iyo maxamed Saciid BK iyo dhammaan abwaaniinteeda oo midna loo wareysan doono muhiimka halkaan u nimo oo anagoo qaarada kala duwan ka nimi Africa North America iyo Europe intaba aniga khaasatan hadaan iska hadlo anigu North America ka imi Canada ka imi waxaan u imi Somali Week oo sanadla ah muddo hadda ilaa 10 sano hadaysan ka badnayna socday waxaan ka mid ahay dadkii Ilaahay nasiibka u siiyay inuu qayb ka noqdo waan uga mahad celinayaa Kate oo mar walba ah una taagan isu aruurinta murtiyahanka iyo artistaha Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanada intaba meel walba ay Soomaali gamagayga Soomaali ha noqoto ama ha noqoto caalamka intiisa kalaba kala jooga sanadba sanad ka dambeeyana wax ku cusub oo midnimada Soomaalinimada isu imaanshaha isu aruurinta afka shirkana ururisa sanadba sanad ka dambeeyana wax ka si fiican sameynaysa nasiib bay aniga ii tahay waan uga mahad celinayaa inay caawin kulan siiso maxamed Saciid Cabdi BK Cabdilaahi Xasan Garay Saciid Saalax qoraayo magacyadooda aan koobi karin oo Soomaaliyeed filmmakers intaas oo dhan waxa amaanteeda iyo mudnaanteeda iska leh Kate oo ah dad Soomaaliyeed khaasatan gabdho Soomaaliyeed oo ay ka go'an tahay midnimada iyo sukeenida iyo aruurinta ummadda Soomaaliyeed farxad gooniye ii tahay farxad gaar bay ii tahay la kulansha ahaanta fanaaniinteeda Soomaaliyeed walaalkay maxamed Saciid Cabdi on reer UK wada joogno mid kalena markaanu barnaamijkan aanu qabanay ka bacdina opportunity kale noo tahayo ummadda Soomaaliyeed ee maxamed Saciid Cabdi fankiisa jecel iyo Cabdicasiis ba iyo aniga kaygaba iyo Cabdulaahi abwaankayda heesaha aanu qaadno aniga maxamed ba kuwayaga ugu wanaagsan qayb kamid ah qaybtii Cabdulaahi Xasan Garay waad garanaysaan marna Xasan Garay oo taqaaniin abiis iyo marna cadarka ahin
labadaa qof oo miisaanka aad aragteen Soomaali kula ay iska dhaleen isna Ilaahay ka dhigay ninka Ilaahay haybadaas u siiyey intaas soo mudnaan iyo mahadsanaan iyo sharaf iyo karaamo ah bay isu imaanshaha iyaga iyo wada joogitaankayga iyo wax wada qabadkayga oo noo leeyahay farxad gooniya ay koowaad iyo labaad saddexaad aniga ay tahay haddana Mike waxaan ku wareejinayaa Maxamed Saciid Cabdi the only and the one legend BK aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis waxa jirta waxaan la joogaa abwaan dhalay Cabdullaahi Xasan Ganay buug qaaliyana uu soo furaya haddii la yiraahdo buugga waxaan doonayaa inaan Cabdicasiisow maca dadkuna ay akhriyaan innaguna aynu akhrino buugga wax leedahay garasho bal hadalkayga horta ay igu jireen Cabdullaahi aanu dhiibo ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay laba fanaano qaaliya baa inala jooga oo ka soo qayb galay maxaa la yiraahdaa Somali Week Festival waa BK Scratch waa madaxa meel ka sareyso la taabtaa aad baad u mahadsan ma jiraan maxaa la yiraahdaa hadaan inta ka soo gudbanaa waxaan isku nimid barnaamijkii Somali Week Festival oo dhaqanka iyo afka Soomaaliga iyo istirka Soomaalinimada lagaga hadlo afkuna sidiisaba waxa weeyaan waxa ummad ka dhiga ee weeleeya ummad ka dhigay waxa weeyaan waa afka haday ummaddu afka si bedelay af kala barato ummad kale noqonaysa qoomiyad kale noqonaysa marka waxa weeyaan waa halkaynu muxuu ahaayay waa halkii la wada lahaa waa halkii naga dhaxaysay waa halkaynu kaga duwanayn qoomiyad ka mid ah qoomiyadaha adduunka oo Soomaali la yiraahdo ka noqonay marka barnaamijka qiimaha leh inaan ka soo qayb galo oo waliba kala soo qayb galo rag maxaa la yiraahdaa fanka heer sare ka gaadhay oo aanu saaxiibanahay aad iyo aad bay farxad galinaysaa aadna u mahadsantiin imikana waxaan ku celinayaa the one and the only aad oo mahadsantiin waan ku faraxsanahay Cabdullaahi Xasan Ganay iyo macallimiinta la isma caasiye codku waa u dhalasho hibu Ilaahay u siiyay ma sha Allah iyo laxanka iyo maskaxdaba Cabdicasiis cisiya sharaf ku noolaada meel kasta joogtaan ummadda Soomaaliyeed qalbigaan idinka salaamayna aniga iyo Somali Week waxaanu leenahay dib iyo horeba nagala socda ma sha Allah Cabdullaahi Xasan Ganay ma rabay heesan sameeyay oo ay doonayso inay la qaado farxiye kaba yare baan islaha ummadana tus isaguna ka tijaabiyay ummadda arkaysa sida ano Toronto iyo Mareykan tareen iyo diyaarad raacin farxiye aan tigidh goosan ano tacadiin jacaylka taariib magafana u marin waxaan ku tashaday anigu tog dheer qardha iyo galgala tale ikhlaaska iyo gaacid tog wajaale laag daaliya carmale dalxiis arooska ugu tuma taalada noloshiisa jacaylka ayaa talahaan u fiican baan intii midhahayagaan sameeyay inta iyadii baa oranaysa tusaalaha aad digtiyo tubtaadii hagaajisay tiriigu ka baxay ee shidan tixgelintiyo quruxda badan qurbe lama tartamayee aday tala ka godaaye goormaan soo talaabsadaa telefoon iyo WhatsApp iyo Snapchat jacaylka ma tarin kare raxmaan bayna taakulayne taashkiyo meherkana xidhaa ma sha Allah aad baa mahadsantiin meel kasta joogtaan ummadda Soomaaliyeed waanu hambalyeynaa inta af Soomaaliga ku hadasha Puntland Somaliland meel kastaba ma sha Allah ma cadaanka bartay aad baa mahadsantiin ma sha Allah 26 waa soo xidhaynaa Somali Week madaxaynu ku ciyaaraynaa kadibna waanu idin soo sheegaynaa buugga Cabdullaahi Xasan Ganay ee garasho Cabdicasiis maxaad oran lahayd Cabdullaahi sidaan kuugu oon qabo miyaad igu olashaa Cabdullaahi baa horta sameeyey miisaanka Cabdullaahi Soomaalidu ama dadka jiraba waxyaalo badan oo iska dhaxlin ayaa jira except dad Ilaahay nasiib u siiyay Cabdullaahi Xasan Ganay cadar Ilaahay cimriga dheereeyay Xasan Ganay baa iska dhalay isna waxa intaas soo baa Ilaahay hibahdana u siiyay murtidii iyo wixii badnaayo abiis lahaa fan dhalay iyo murti dhash buugaas marka wax badan baad ka dheehan doontaan ma sha Allah abwaanku wuxuu igu sii diray hees anigu heesahaygii hadda koor baa waxa heesay nin la yiraahdo hees waxa jirta uu sameeyay Line Reach Commodores maruu ka tirsanaa heestaas hid ma noqon waxa qaaday arninka cadaanka ahaa Lady baa leedahay heesta macna markuu ka hadlay wuxuu waxay noqotay turning point of my life
macnaha heestii uu isagu ku soo noqday waayaha iyo wacyiga heestii ugu horreysay oon qaado ugu horreystay heestii sidaan kugu onqomiyaad igu oloshaa bay qayb ka tahay hadda markay taasu ku jirto in badan oo ka murtay maaragtay miisaan culus oo kalena way ku jiraan cabdullaahi waa nin yar abwaan keliya waa nin aqoon-yahana waa nin han badan ka qaba inuu la wadaago ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waa nin badbaadinta dalkeennii iyo dadkeennii iyo dhaqankeennii uu han kaga jiro bride-na ah marka waxaan idinka codsanaynaa each and every one of you bal inaad aragtaan murtida iyo waxa qiimaha iyo sharafta leh ee ku dhex jira buugaas inaad nala aragtaan cabdullaahina waxaan idin hubaa inaydan waxaan karaamo ahayn iyo aqoon siyaada ah aan ahayn inaydan kala kulmin cabdullaahina waxaan leenahay caqliga garashada Allah ku saacideeyo maanta ka waran barnaamijkan Somali Week iyo sida uu dhacay horta sanad kasta wax cusub baa la arkaa sanadkan waxaan aad iyo aad u jeclaystay runtii dadka wajiyadooda ninka la yiraahdo Cabdikariim Saciid nin waqti fara badan Soomaalida ka maqnaa filmmaker taariikhda filmiska ee Afrika wax weyn ka ahaa in uu maanta ina dhex yimaado oo arkaysay siduu u bedelay moodka u bedelay waxaad wixii ugu qiimaha badnaayay maanta ka dhaca marka runtii siduu u bilaabmay aad bay qurux badan tahay mar kale Somali Week wuxuu muujiyay qiimaha ay leedahay ummaddu isu timaado oo ay ka sheekayso waxay wadaagto oo ay aragto waxa qiimaha leh in ay wax qurux badan ka soo baxayaan runtii marka wax aad iyo aad qurux badan baa ka soo baxay waan ku faraxsanay sidii caadiga ahayd Star TV inay hoggaanka u hayaan meediyaha ay gaarsiinayaan ummadda bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ugu mahad celinayaa dadka ka soo qayb galay iyo dadka abaabulay Somali Week aad bay u mahadsan iyo dadka meel walba oo fogfog noogu yimid sida Cabdicasiis Iskilaaji Maxamed Bike Cabdullaahi Ganay ما شاء الله عبد الله حسن قني ما شاء الله وأبوانكينا دادير ما شاء الله so much si qurux badan oo ma sha Allah ayuu runtii u dhacay waxa ka soo qayb galay Soomaalida inteedii badneed intii ugu mutakarsanayd ee London ku noolayd ayaa ka soo qayb galay runtii aad afkaar badan iyo fikrado badan la isku weydaarsaday oo kamid tahay dhaqanka hidaha iyo dhaqanka ka mid tahay waxyaalaha inta badan ummadeenu dhalinyarta waddanka ku nool ee waxyaalo badan hirgeliyay amba meelo badan ka soo baxay runtii dadaalay dad badan oo la soo casumay baa jiro dibadaha ka yimid sida Maxamed Saciid BK Iskilaaji baa jooga waxa kale oo joogay iyaga qudhoodu dad ayaan fara badan oo qurbaha kale ka yimid sida Canada iyo wadamo kale ka yimid Mareykanka laftigiisa qolaa ka socotay runtii aad buu caawa si qurux badan buu noogu dhacay oo furmay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Britain ayaa maanta aan u kala hadhin si ay uga soo qayb galaan barnaamijkan Adnaan Cabdi Saxardiid TV-ga caalamiga ee Sab TV British Library London